wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxay soo gaareen magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaana si diiran ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo labada gole ee maamulka Jubbaland oo ay horkacayaan madaxweynaha maamulka Jubbaland iyo ku-xigeenadiisa asoo kale soo dhaweynta Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya waxa ka qayb qaatay ururada bulshada ee ka dhisan degmada Kismaayo intaasi kadib ayaa madaxweynaha wuxuu salaan sharaf u ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka federaaliga ee Soomaaliya waxa ugu horeen warbaahinta la hadlay madaxweynaha maamulka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam wuxuuna sheegay inuu ku faraxsan yahay maashiyaha magaalada Kismaayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay hadaan reer Jubbaland maanta in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Farmaajo ziyaaro loogu booqasho soo gurigiisa yimid anagu aan ka jeclaa in safaradoodu ay sidaan hore ugu kaftamayay madaxweynaha iyo saaxiibadii iyo dawladda prime ministerka iyo speakerkii inay xafiisyo furtaan marba ay joogto u noqoto wufuudda caalamiga xataa meelaha kula ballamaan shirarka ku galaan haddana waa markii koowaad hadda madaxweynuhu uu ziyaaro noogu yimaado madaxweyne ku soo dhawow waa dalkaagii waa dalkaad madaxweynaha ka ahayd ma aha jamhuuriyad kale meel kale jirta waa state ka tirsan dowlad goboleedyada Soomaaliya aad baa lagaga soo dhaweynayaa waan ku faraxsanahay ziyaarada adigii iyo wafdiga kula socdo waxaan idin rajaynaynaa hadda idinku waad timaadeen iraadadii inaad ku timaadeen inaad taanada ku bixi doontaan haddii ilaahay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya ayaa wuxuu noqonayaa madaxweynihii ugu horeeyay ee iskugu soo baxaan kumanaan shacab weyne ah kuwaas oo ku dhaqan magaalada Kismaayo iyagoona ku soo dhaweeyay caleemo qoyan wuxuuna tilmaamay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya inuu ku faraxsan yahay inuu soo gaaro magaalada Kismaayo sida kalgacaltooyada leh farxadda badan wanaagsan aad noo soo dhaweyseen waan filaynay rajaynaa kullayba wixii aan ka sameeyay hawshaas inaan dib ka sheegno maalmaha soo socda Ilaahay yiraahdo laakiin waa qaatay fakarkaaga ah in meeshaan aan ka sameeyno xafiisyadii federaalka haday noqoto wasaaradihii madaxtooyadii wixii oo idil hawshii la rabay in xagga laga fuliyo qayb ahaan halkan laga fuliyo ay khasab tahay wafdigu uu hogaaminayay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kormeer waxa ay ku tageen xarooyinka ciidamada ee magaalada Kismaayo isagoona booqday ciidamada federaaliga ee tababarka u soo dhamaaday wuxuuna tilmaamay in dhawaan loo qaybin doono ciidamadaasi hubkooda annagu haddaan nahay dowladda federaalka insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo waxa ka haray ama waxa idin dhiman waa soo dhameystirnaa insha Allah inuu Ilaahay hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan aaminsanahay inaad howlgalaysaan Cabdi Qadar Iimaan Dhaqane TV-ga caalamiga ee Home Cable magaalada Kismaayo.